madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada odayaasha barasaabka gobolka Saaxil waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaam mudane madaxweyne halkan waxaa kuugu diyaara degmada Sheekh cuqaasheedii haldoorkeedii odayaasheedii aqoonyahankeedii oo ka wakiila bulshooyinka reer Sheekh iyaga ku diyaara mudane madaxweyne ku soo dhawo degmada Sheekh waa goor gaaban ergeed gaaban madaxweyne hadalka waan soo koobaynaa insha Allah tacaala wixii wax qabada iyo wixii aanu tabanayno iyo wixii aan u baahanahay xukuumaddaadu aanu ka codsanayno waxaan u dhaafayaa odayaasha oo ka wakiila bulshada degmada Sheekh anoo ku hadlaya afka dadweynaha reer Sheekh waxaan soo dhaweynayaa waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan ku soo dhaweynayaa gurigiinii ku soo dhawaada dhammaan dadka halkan isugu yimi waa wada reer Sheekh inta waxaan raacinayaa madaxweynuhu markii uu ku jiray xilligii doorashooyinka hal qodob oo kaliya reer Sheekh u ballan qaaday jaamacad baan idinla dhisayaa buu yidhi haddii aan soo baxo horta madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay jaamacaddii waad noo bilowday annana wax baanu ku darsannay meel fiican bay maraysaa waa kuu mahadnaqayna madaxweyne runtii biyahan ka yar hadlayaa biyaha degmada Sheekh 80% waa oomane laakiin ummaddu waxay u taqaanaa dhul durdura waxaanu codsanaynaa ceelal badan baa dalka laga qodaa in ceelasha wax nala ka soo gaarsiiyo degmada oo runtii waxaanu leenahay dhul oomana aan xataa baraagu ka hirgelin oo laga qaxo oo laga bismillaahir rahmaanir rahiim aad ayaan idin salaamayaa waftida uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi seedigay iyo waftida la socota dhammaan waa salaamantihiin anigu hadal badan uma kicin saacadii baynu joognaa ardaydu oran jirtay saacatul qaafiir waa la gaajoonaya waana soo daasheen mudane madaxweyne waxaan kuu sidaa anoo ku hadlaya codka haweenka degmada Sheekh fariin taasoo ah haweenku waxay berigii codsadeen jaamacad aynu wada dhisano oo annaka iyo adiguba wax noo qabato tiina way hirgashay salaan iyo hambalyo ayay kuu soo direen waxa kale oo aan ku darsanayaa hoolkan aynu joogno taariikh fog ayaa la dhisay maalintii la qaatay reserve area ardaydii ku jirtay markay safka ay soo taageen ee la yiri waa la bixiyo way foorsadeen gaalkii baa u yimi what happened way hadli waayeen wuu yaabay madaxa gacmaad saareen Umar Cabdi Qaalib baa u yimi war maxaa leedii waxaanu ka xunnay bay yidhaheen halka wuxuu yiri marka wax barataan waa midowdaan ayaa reserve area aynu helaynaa mudane madaxweyne taariikhda Sheekh waa mid fog oo culus oo ku suntan halgankii Soomaaliland marka waxaanu codsanaynaa risausta in meelun aad nagula ciirto ayaanu ka codsanaynaa wasiir mareexaan oo runtii aan hambalyaynayo aad baan horta ku hambalyaynaya TV-ga waxoogaa daawadaayo wax badan baad fulisay fadlan marna soo eeg salaamaya mudane madaxweyne dadweynaha reer Sheekh halka fadhiya inta biibay u dunuunucayaan biyaanu helno biina xakame waxa nagaga haya burco iyo berbera anigu hadal uma kicin laakiin waxaan u kacay inaan maanta halkan ka gabiyo inkastoo wax lagu yaqaanay aanay ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahu magacdaada asmaadaada koraysa marka ay ku adkaato addoommuu irkadaan ku ajiib ducadaynan adigaaba u doortay inta Muuse uu joogiyo digtoorkaa arabee arrimaha dibadda inantaa adna aadan ee ayaanka wacnayd aqoontaa sacadee dhaqaalii ka adkaatay inankaahin ilaahay ka sakow ammaankeenna ilaasha hinaasida wasiirada halkanaan ku jirtaane in kaloo la asaaga waa wixii xil hayoo dhan in kaloo la asaago
inoo haysa ammaano waa ammaanahayo waanu aaminsanay ilaahow arrinkeenna ilaahow erligeenna ictiraafkan sugayno awooddaada rabbow waa ishaa biriqdeede dad aqoonsi helo umuurtiisu hagaagto ummadaa la midooda ilaahow naga yeelo aqbalkeeda nasiib in kaleetana waa astaantaa calankeenna udgoonow nebigii iyo in ilaah keliyay oogadiisa ku taallo ciddii soo aryadaysa aflagaadiya ceeb iyo inta eeduu taqaanee xumaantuun ololaysa ishii cawigu taqaana inta u dabaysa kuwa aasi xaqeenna u adeega shisheeye ama aan islahayn ilays baa bixi doona aqoonsaa iman doona adigaa arkayo ogaal baad u tahee nooga hiili rabbow gabaygu waa intaa waxaa intaa wehelisa uun oo madaxweyne xukuumadda aada odayga ka tahay aanu ku adkaynanaa waxaan isleeyahay aqoonsiga sheekh intay wax ka maqan yihiin aqoonsiga somalilanna waxunbaa ka maqane arrinkaa maskaxda kuwaya caliga aad baa loola dardaarmee caligow degaanka oo dhan iyo gaar ahaan sheekh xagga biyaha salaamullahi calaykum waraxmatullaahi nabar waxaa noo yeeshay darajada c annagoo ah degmooyinkii shiikh somalilan ugu horreeyey annagoo degma ingiriisa annagoo waxa weeye mudane madaxweyne nabar bay noo yeeshay darajada c maalin walba waa laga hadlaa waxaanu doonaynaa b inaad noogu dhawaaqdo darajadaasi waxa weeyaan annagoo isu qabna inaanu degmooyinka somalilan degmooyinkii ugu horreeyey shiikh ingiriis halkaa way astaantiisii taallo magaalo madaxdii ay ahayd waxa weeyaan c d baa usii socotaa oo yaa lagaga doodayay maalin dhowto mudane madaxweyne waxaanu ka qabnaa nabar halkaa in wax laga qabto degmada aanu b baanu degmooyaanu xaq u lehnay mudane madaxweyne halkan waa degmadii sheekh waa la wada garanayaa taariikhdeeda iyo haddii baydankeeda leeyahay sumadaheedaba waa ti la sheegaya la bixinayey iminkana maamul fiican oo diirdiiran oo haddii baydankeeda leeyahay aada iyo aada u fiican oo aanu calool iyo niyo wanaagsan oo haynaaba haysta waxaanu leenahay maamulkaa ha lala qabto oo madaxda guud waxaa la qabtaan wixii ay awoodi kari waayaan waxaanu leenahay waxaa baahiyaha la sheegayo ee laga hadlaayo ha lala qabto oo wixii awood aanu qaadi kari wayna ha lala qabto baanu leenahay madaxduna ha ku ogaato inay tahay dhalinyaro aada u firfircoon oo magaalada bilicdeeda iyo sharafteeda aada soo saaraysa bismi illaahi raxmaan iraxiim salaan kadib aada iyo aad baa umahadsan tihiin qodobadii aada soo qaadeen waa 3 mid waa biyo midna waa degmada darajadeeda midna waa aqalka martida ta biyo waa ka howlgelaynaa waayo biyo waa daruuri haddii alla yidhahdo cali wasaaraddu sahan bay qaadi dhaqaalahanu isla eegi waa laga howlgelaya ta biyaha aqalka martidana dee qarankaa u baahan meelo badan waanu ka dhisnay kolley iyadana kuwa hore markay dhammaadaan kuwa xiganu bilaabanay noqon doonta ta derajada dee horta sharcigu soo dhaweynu u raacayna iyada annama taaban kare ninka lama taaban karee tisoorkana dee xildhibaanadu way joogaan marka derajada waxaa loo mara sharciga waa qadiimkeeda iyo taariikhda inay ahayd caasimadii hore qaranka intii aan hargeysa loo rarin berbera laga soo guray halkana laga dhigay haddana waxaa loo raray hargeysa taarikhda weelada soomaliya dhumana way soo wad martay sheekh nin kastoo hebel la idhaha magac inuu soo maray waxba kasoo martay waana nasiib badan tahay oo iminkana intay ka bad baa kasoo baxaysa labadan iskuul kii sheekh soostiina qolo ka fiican baaba timid oo faaro oo sii wanaajisay markaa nasiib bay isaga leedahay dadka inay soo barbaariso oo dad bani ka soo baxaan iyo kuwa u dhashayba labaduba inay aada uga soo baxaan ay aqooni taalana nasiib bay u yeesha cidina umay qoonteen cidina labay soo doonan buqcaddaas ba ilahay midoo wax u dhigaaye aqoonta dhigay
taana waa u ognahay waxayna tahay saddexdii qoom intaan ku koobo sidaa u sheegay cali bari waxaanu kaga nimid wanaagan iyo soomalilaadnimo sheekh istaaskeedaasi dee raggii xildhibaanadii saasi joogeen bal ha soo kiciya waayo in la yidhaha adigu bedel anuma bedeli karo story wey waddada loo mara xeerka waxaa sheegayaa ismaamulka gobollada dee idinkama aqoon badnee intaad soo qortaan sharcigiisa u buuxseen iyo halka laga tabanayo uun keena